qiso halkan ka dhacday oo nin yahuud ah uu ku caawiyay reer Soomaaliyeed oo gabadhu ay u shaqeyn jirtay hooyadiis bay caawin jirtay ninka yahuudka ah wuxuu ahaa nin businessman ah oo taajir ah oo lacag leh maxaa kadibna reerkaas Soomaaliyeed noloshoodii buu ka qayb qaatay gabadhaas wanaageedu uu arkay iyo maxaa sida ay hooyadiis u keer gareynayso wuxuuna maxaa go'aan ku gaaray inuu caawiyo gabadha oo wax badan reerkeeda muddo badan u shaqeynaysay oo adiga waxa laga yaabaa 5 sano inay caawinaysay dadka Soomaaliyeedna way ku yar tahay maxaa inay shaqada ay joogaan oo shaqadooda ay si macnaha sanado ay ka shaqeeyaan ma jecla Soomaalidu sanadkan kan ka shaqeynayaan company-ga waa ka tagayaan company kale waa dadka shaqaalaha company-ga kale ka shaqeynayaan company way tagtagaan laakiin qofku markuu shaqada ku raago wuxuu noqdaa waa la dalacsiyaa ama waxbuu dalacsiis buu helaa ama dadkii uu la joogay maxaa uu shaqeynayaba jeclaada oo maxaa report fiican ka bixi kadibna ku qol company-yaasha keerarka iyo waxaas waxay siiyaan awaad bay siiyaan qofkaas iyo inay dalacsiyaan oo keerka coordinator oo kale ka dhigayaan oo meesha xafiiski baa la keenaya oo xafiisku ka shaqeynaya marka shaqooyinkan ka soo shaqeeyay experience aan ka hayo way sheeka dhab ah oo halkan ka dhacday marka waxayna ku dhacday gabar aniga aan wada shaqeyn jirnay company-ga ka shaqeyn jirtay dadka halkan marka loo shaqeeyo hadaan wax yar sheekada aan ka dhex baxo dadka halkan loo shaqeeyo oo maxaa la dhahaa company-yada oo private ka loo leeyahay badana waxa u badan yahuuda u badan oo yahuuda iska leh businessyo badan bay leeyihiin yahuudu dadka company badanna way leeyihiin company-yadooda waa private lacag fiicanna way bixiyaan oo maxaa la dhahaa lacag fiican bay baxshaan qofka lacag fiican bay shaqaalaha siiyaan si uusan qofku maxaa la dhahaa uu daacad ugu ahaado shaqadiisa uusan u meermeerin ama uusan ugu cararin oo shaqada kale uu aadayo ugu cararo marka maxaa la dhahaa maadaama ay gabadhaas reerka 5 sano caawinaysay waxa weeye ninkaasi hooyadiis ay caawinaysay uu arkay waa nin businessman ah dadka badana Asiyaanka iyo yahuuda iyo ahna maxaa la dhahaa waalidkood way haystaan oo guryahay ku haystaan ama intay guri u kirayaan bay ka warhayaan oo qof baa la jooga ama qof bay u kirayaan kaasoo qofkaas u yimaada ama ba la joogaaba ama saacado badan la jooga ama maalintii intaas oo saacadood ku soo noqnoqda oo qofkaas ka warhaya marka aad bay uga warhayaan waalidiintooda waa dadka waalidkood saa u haysta dadka islaamka nala sheegtay ee carabta ah maxaa la dhahaa ma aha sidaa waxa laga yaabaa inay care home ka dhigaan baa laga yaabaa because carabtu ma aha dad fiican ma ahan xitaa halkaaniito dadka marmar baa dad taajiriin oo carab ah degan marka marmar baa loo shaqeeyaa oo company-yadu ay ku dirayaan qofka reer carab ah oo maxaa la imaaraadka ka soo guuray oo ama halkan maxaa la 3 bilood fasax u yimi ama halkan ba iska soo guuray halkan degan markaas ay waxay ku nool yihiin lecture life bay ku nool yihiin taajiriin bay ku nool yihiin company-yada shaqada dadka u dirana waa kala fiican yihiin oo company-yada kala fiican marka company-yada oo maxaa la dhahaa yahuuda badana maxaa la dhahaa dadka waxay u diraan dadka tujaarta ah because waxay qaadanayaan qof private loogu shaqeeyo oo lacag badan bixinaya qofkii shaqaalaha ahna waxay siinayaan lacag badan marka maxaa la carabtu dad fiican ma ahan oo maxaa la dhahaa hadii la yiraahdo waalidkood uma roona oo dadka waalidkood haya ma ahan hadii la dhaho shaqo ahaan oo qofka caadiga ah oo shaqaalaha ah u tagana khayr kala ma kulmo oo waa dad xun weeye waxaan garanayaa gabar saaxiibadii oo halka iga daawanaysa oo maxaa la dhahaa sheekadeeda iyada iga sheekaysay baa waxay igu tiri waa dhexdaas reer carab la diray reerku marka fasax bay ku yimaadeen halkan oo waxay rabeen qof caawiya Englishkana si fiican uma aqoonin waa naag iyo gabadheeda baa yimi ninka ma arkin bay tiri guriga macnaha nin ma arkin gabadha Soomaalida macnaha carabta idin sheegaya dadku inay kala fiican yihiin iyagoo islaamna aysan ahayn ninka yahuudka ah wanaagiisa macnaha baan ka sheekeynaya iyo naagta carabta sidii gabadha islaamka u galayso marka sheekadani ninka yahuudka ah iyo gabadha reerka Soomaalida uu caawiyay wax yar haynoo taalo gabadhaas marka sidii u galeen reerka carabta baan ku idin sheegaya qof baa wuxuu yiri sheekooyinka noo soo kala jarjaro mid walba maalin ka dhig maxaa dhahaa sheekooyinka way maxaa dhahaa way isbuuxinayaan marka intaan tan sheego hadana tan bari ma sheegi karo sheekadan tan ay related la tahay marka waa in tan la sheegaa marka hadda tan waxa weeyaan waa nin yahuuda oo reer islaam oo Soomaali ah caawiyay oo shaqada gabadhaas u shaqeynaysay oo reerka caawinaysay buu ka arkay wanaaga sida daraadid buu reerkii oo dhan ku caawiyay naagtan carabiyada oo gabadha Soomaalida u tagtayna bal dhibkay kala kulmaysa arag waxa weey gabadhi baa u tagtay waa loo diray markii loo diray bay tiri waxaas rabaa caawi okay bay tiri gabadhi shaqadeeda qabsatay waxay u qaban kartay waxay ka caawin kartay caawisa dhow markay bixisay cash in hand way marka lacagta waxa weey company waxa jira lacagta gacanta laga siinaayo dawladda way ogashahay way ogtaa qofkaas waxa laga yaabaa inuu self employee yahay lacagtaasi maxaa la dhahaa uu self employee u qoran yahay oo dawladdu ay si kale u la xisaabtanto oo asaga cashuur gooni ah bixiyo marka cash in hand bay ahayd waxay tiri isii lacagteedii
naagtan carabiyada ah oo imaaraadka inay ka timiya u malaynaya reer imaaraad ay ahaayeen waxay u malaysay gabadhan Soomaaliyada ah sidii kuwii ay maxaa lahaa ay gumaysan jirtay oo ay wadankeeda ku gumaysan jirtay u malaysay lacagtii bay u diiday waxay tiri no la bukra come back bukra amal macnaha waxay tiri bukra soo noqo gabadhi waxay tiri bukra ma soo noqonaya lacagteedii aan u baahanahay aniga cash in hand weeye shaqadii waa ku qabtay lacagtii baan rabaa daily wixii aan maanta kugu lahaa gabadhi waxay islaantii gaalada carabta ee waxay tiri la ma fi fulus bay ugu tireed gabadhu markay ka sheekeynayso imtixaan عربي كتاب التقال ما في فلوس today bay ugu tireed maanta lacag baa iska bax amal gabadhi waxay tiri iska bax telefoonkiyan soo qaatay tir dhag waa diray waa ii dhacay maxaan booliiskan wacay markaas waxaan dhitri markuu telefoonka dhacay ay aragtay oo leega qabtay booliis baa u baahanay bay igu soo booday tir oo telefoonka iga qaaday waxay tiri please ha ii maxal dhahaa ha igu yeerin booliiska dami telefoonka isi lacagteedii baa eriyay tiri markaas waxay dhahdaa ku siinay heblo gabadheedii kor joogtay u wacday heblo kaalay gabadheedii u wacday gabadhii waa soo digtay gabadhii waa xogaa ingiriisi taqaan gabadhii ay la hadashay tiri marka gabadhii saaxiibadii waxay ugu tiri keen maxal dhahaa maxaa rabtaa maxaa maanta meeqa lacag aan ugu leedahay markaas tiri intaas ay ku leeyahay habartii waxay tiri waa oroday meel halkaan ka barabay tagtay oo kushiinka ku yaala lacag saa u buuxda oo iska haystaan bay tiri bay saa soo bixisay oo waxay tiri kam intay tiri wixii bay kala garan weyd lacagta oo iska haystaan xitaa ma kala yaqaana bay tiri oo konton iyo 20 abay tiri baan ah intaan saa u furay bay tiri wixii wadatay baan saa uga la baxay lacagteedii oo aan ka qaatan tiri intaas aan kugu leeyahay markaas waxay tiri xitaa waa dhici karay oo lacagta waa ka qaadan karay lacag badan laakiin xaaraan ma rabin bay tiri intayda aan shaqaystay oo dhididkayga aba igu filneed bay tiri gabadha Soomaaliyada ah waxay tiri waa ka soo carray kambanigi baan la hadlay bay tiri ii soo diray waxa ay tiri naagtan maalin baa la dacweyn doonaa oo maxaa la dhahaa booliiska loo sheegi doonaa because dadka lacagtooda way u diidaysaa la hadlo u sheega marka sheekadani baan usoo noqonaynaa sorry intaas waxay ahayd macnaha connectionka sheekooyinka ka dhaxeeya marka ninkan yahuudka ah wuxuu ahaa nin businessman ah oo taajir ah oo lacag leh buu ahaa hooyadiis oo xanuunsan oo kaliyahana laga dhaqo bay gabadha Soomaaliyada ah caawin jirtay gabadhii marka way caawisa adigu muddo 5 sano bay u shaqeynaysaa ninka wuxuu yiri gabadhu marka baabuur ma wadato laakiin ninkeeda baabuur yar oo iska qorqoro ah wadato ninkeeduna ma shaqeeyo kaligeed baa shaqeysa oo reerka isku qoran halkan waxa la ogol yahay hal qof kaliya inuu shaqeeyo haday rabaan hal qof kalena guriga joogo because noloshu waa kugu filan tahay lacagta caruurtaada ku qaatid iyo lacagta aad shaqeysatid iyo waliba wax kale oo lagu kabayaba habay halkan leedahay Ingiriiska way ka fiican tahay meelo badan oo Mareykanka iyo Yurub oo kala ah marka gabadhi kaliya shaqeynaysa reerku marka isqabaan 24 saac baa laga rabaa ama 30 saac weekii inay shaqeeyaan gabadha iska shaqeynaysa marka oo shaqadaas haysatay oo macnaha rate fiican ku shaqeynaysa lacag fiican ku shaqeynaysa yuhuud lacag fiican ay bixiyaan saa idin sheegay gabadhi marka ninkii marka wuu arkay muddo badan way u shaqeynaysa adigu 5 sano bay gabadhan si consecutive oo kala joogsi lahayd reerka u caawinaysa oo ugu shaqeynaysa ninkii waxay tiri marka wuu i wareystay wuxuu yiri baabuur ma wadatid miyaa baabuur ma wadataa maya ay baabuur ma wato in maxaa dhahaa xageed digantay halkaasaan diganahay meeqa bas shaqada u soo raacda waxaan u soo raacaa in maxaa dhahaa laba bas baa u soo raaca yaa caruurtaada uga timaada ninkayga uga imaada ninkaaga ma shaqeeyaa ma ninkayga ma shaqeeyo bas adigu ninka axwaasheeda dhan wuu hayaa maalin dambe wuxuu ugu yiri driving license ma leedahay markaas waxa ay tiri ha driving license waa leeyahay mar hore aan qaatay laakiin baabuur ma wato hal baabuur baa haysanaayo laba baabuur ma kala bixin karnaa ninkayga kaasaan wadaagnaa marka kaasaan marmar wataa marmar baa marka ninkayga keenaa bay tiri marka wuu i arkay tiri baabuur yar oo iska miskiina buu ninkayga wataa bay tiri oo xoogaa qorqoro ah buu ninka wataa uu arkaa ninkii soo dhigaya maalmaan uu ii fiirsaday adigu ninka yahuudka wuxuu dirsay bay tiri noloshayda dhan buu dirsay waxay tiri marka adiga 3 sano 4 sano marka adigu 5 sano u shaqeynayay baa maalinta dambe wuxuu yiri bay tiri maanta waxaan ku siinayaa gift baan ku siinayaa maanta waxay tiri baabuur wuxuu leeyahay cusub oo fiican oo weyn oo marka 3 sano kaliya jiray buu leeyahay bay tiri marka waxay tiri gaari kale to bac ah baa maalmahaas guriga la keenay uu soo gatay bay tiri oo uu maxaa la dhahaa guriga ugu baarkin gareysan waxay tiri wuxuu igu yiri maanta hadiyad baan ku siinayaa marka shaqada dhameyso oo aad bixi rabtid maxaa la dhahaa iiwa kor buu joogaa isaga hooyadiis buu la nool yahay ninku oo maxaa la dhahaa hooyadiis buu maxaa la dhahaa la nool yahay marka gabadhan hooyadiis bay caawisaa si consecutive of 5 years bay u tagtaa u tageysay gabadhii waxay tiri waa ii wacay wuxuu igu yiri tiri kaalay maanta hadiyad baan ku hayaa waxay tiri box yar buu soo saaray oo saas ugu daboolan boxkii wuxuu yiri bay tiri maanta waxaan ku hayaa hadiyad banaanka u soo bax boxkii buu ii dhigay boxka aan qaato waxaan leeyahay tiri muxuu ku siinayaa ninka wax kale iyo lacag iyo waxaasaan mooday tiri aniga qofka markii hadiyad la dhaho Soomaaliga waxa ku soo dhacaysa lacag mugta lacag aan nahay marka waxay tiri lacag baa igu soo dhacday waxaan siriyay tiri maxaa talo ma lacag baa lagu siin doonaa
xijaabka sheekadii uu bilaabayaa marka waxay tiri gabadhi waxay tiri banaanku isar boxkii dhibi wuxuu yiri tiri boxka kala fur boxkii baan faq boxkii saas u furay mise furayaal baa ku jira wuxuu yiri gaarigaygaas muu jeedaa ha 3 sano kaliya uu jira adiga iyo ninkaaga idin hibeeyay adigan ku siiyay maxaa la dhahaa MOT maanta ka bilowdaa la saaray MOT saarso taxi road saarso adiga iska leh gabadhi waxay tiri waa yaabay waxay tiri ninkeygii baa orod ugu wacay waxa ay tiri soo orod gaarigii baa la siiyay maxaa ninkii baa gaari siiyay maxaa yuhuudka ahaa waxay tiri ninkeyga soo baxay oo baabuurkiisa ka soo tagay uu ii yimid gaarigii baan ka xeysanay markaan shaqada dhameeyay waxay tiri waa tagnay waa israacnay gurigeygii baan tagnay subaxii dama haddana soo gal wuxuu yiri tiri ninkaaga shaqo ma rabaa inuu shaqaysto ma rabaa waxa ay tiri ninkeyga ha uu shaqaysan kara laakiin hadda 24 saac ma shaqeeya dukaan baan leeyahay wuu yiri ninkeyga ninkii baa igu dhahay tiri yuudka dukaan baan leeyahay dukaankaas wuxuu gadaa qasaaladaha wuxuu gadaa maxaa la dhahaa firiijyada wuxuu gadaa elektrooniga hooverada wax kastuu gadaa hadii uu ninkaagu maxaa la dhahaa uu gadi karo oo uu xitaa uu nin baa ii gada buu yiri maxaa la eeshiyan ah hadii uu ninkaaga shaqaale labaad noqon karo oo uu dukaankaas wax ka iibin karo waa u offer gareynaya shaqadaas hadii uu shaqo rabo u sheeg ninkaaga gurigii baan ku noqday tiri subaxdii haddana ninkeygii baan u sheegay waxa ay tiri maxaa la dhahaa ninkii wuxuu leeyahay dukaan baan leeyahay nin eeshiyan ah iga shaqeeyo hadduu ninkaagu rabo uu ka shaqeyn karaa dukaanka shaqan ka siinayaa ha ii yimaado maalin hebla taariikh heblo gabadhi waxay tiri waa yaab waxa isiri tiri muxuu ka wadaa ninkan waa baxay tiri gurigeygii baan tagay anigoo yaaban ninkii go'aan baan ku gaarnay maxaan sameynaa wuxuu yiri de ninkan isaga waa nin taajir ah waa iska qaadanayna maxaan sameynaa waa inaan qaadano waxa uu nasiiyay baabuurku nasiiyana waa ka gudoonay waa mahadsan yahay shaqada uu ii offer gareeyna waa qaadanaya xisaabiya u tagaynaa self employee qoranayna waxaan dhamma isku hagaagsanayna nolosheena maxaa la dhahaa waa isbedelaysaaba hadii maxaa la dhahaa aan dukaanka ka shaqeeyo ninkii Soomaaliga waa baxay dukaankii baa laga shaqaaleysiiyay maxaa la dukaanka markii laga shaqaaleysiiyay dukaanka adiga markuu ka shaqeeyay muddo 6 bilood ah ninkii hindiga ahaa wuu beerid ninkii yuudka ah wuu beeriba wuxuu yiri ninkii hindiga ah intuu eriyay wuxuu dukaanka adiga mas'uul ka ah sidaan gabadha naagta xaaskaaga u aaminay oo ay hooyaday intaas sano ugu shaqeynaysay baa adigana ku aaminaya marka yuhuud way aaminaan halkan carabtu aamin ma leh dad fiican ma ahan oo dadka aamin adigayba waxay ku leeyihiin carab baan ahay ixtiraam nabi maxamed ay iga dhashay ixtiraam nabi maxamed uu kaarshay adiga nabi maxamed aad tahay maxay ka galay waxba igama ka khuseeyaan nafti meesha u roon bay raacdo qofkii u wanaagsan dadka shaqaalaha oo shaqeeya qofkii u wanaagsan dadka carabta waa laga cabaaday waa laga qiiliyay dad fiican ma aha gabadhi ninkeeda reerkoodi ninkaas yuhuudka ah reerkii Soomaalida ahaa noloshooda wuu bedelay gabadhi ninkii ilaa hadda dukaankii uu ka shaqeeyaa gabadhi islaantii way dhimatay oo gurigeeda iska joogtaa ninkeedii baa shaqadaas fiican u haya waxaan ku leeyahay de ninkaas yuhuudka ah baa ka qayb qaatay islaantiina way dhimatay ninkii Soomaaliga ahaa dukaankii buu wali ka shaqeeyaa gabadhina gurigeeda fadhida shaqadii keerkeedu way iska deysay ma garatay waaban anigu ka shaqeyn jiray kambaniyadaas maxaa la dhahaa yuhuud ay leeyihiin waa kambaniyo waaweyn hadda aniga gabaran my cousin ah baa ka shaqeysa oo waxay noqotay supervisor bay hadda noqotay waagi hore waxay ku bilowday care bay ku bilowday oo care bay shaqeyn care ahaan bay u shaqeyn jirtay meel home care ah bay care ahaan u jeegi jirtay adigu maalintii bay tagi jirtay subaxna 2 saac bay gali jirtay subaxnimo waxay ka soo bixi jirtay adigu xilli maxaa la 6 meelahaas maalmaha kale 2 o'clock bay gali jirtay waxay ka soo bixi jirtay 10 habeenimo gabadhii hadda waxay ka dhigeen malaj iyagu yuhuud waxay u dhaqmaan sida Mareykanka oo kale qofka hadii arkaa inuu shaqeynayo qofka way dalacsiiyaan oo meeshuu joogay way ka sanmariyaan laakiin waxaan kaleeto oo carabta ah markii la isbarbar dhigo 10 goor diinta markii laga yimaado islaamnimada laga yimaado nimanka yuhuud anaga Soomaali maxaan dhigi jirnay naga tag yuhuud ku dhalay was qofku mar hadaa dhaho yuhuud ku dhalay was bas ay uma dhina habaarna uma dhina wax xun oo dhintay aan u haysanaa laakiin halkan waxa way ku heelinayaan maxaa la diintaada u heelinayaan maalmaha xitaa banaanbaxa Falastiin la taageerayo kuwa taageera jira oo la baxa oo banaanka taga oo dhaha maxaa la dadka reer Falastiin maxaa la occupation baa ku haysan dawladda Israa'iil waa khaldantii bay dhahaan marka dadku ma wada xuma dawladda halkaas degan waa dawlad xoog wax ku haysto xoog ku muquuninaysa oo dadka rabta in dhulka ka qaado laakiin dad yowga dhulkan degan waxa way waa dad civilized ah oo ilbax ah iyagoo yuhuudnimadoodii
ku ah remain ku ah oo yuhudnimadooda jooga bay haddana adoo islaam ah ku ixtiraamayaan xijaabkaaga lama taaban karo masaajidkaaga wax lama yeeli karo because waxay ogyihiin qofka islaamka haddii lagu xadgudubka dambe labaad iyagu ku dhacayaa marka way ka hortagaan wayna diidaan maxaa la dhahaa anagu nacaybkooda gudaha ma dhexgeli karno laakiin daahirka markii la arko banaanka laga arko waa dad fiican oo lala dhaqmo because marka lala shaqeeyo baa dadka la bartaa markii lala shaqeeyo ama kambaliyadooda loo shaqeeyo ama maxaa la dhahaa ay ama aan la shaqaysid ama iyaga u shaqaysidba iyaga dad kamid ah u shaqaysid marka dad aad u fiican waaye maxaa la dhahaa reerkaasna noloshooda way ka qayb qaateen kambaniyada halkan ka shaqeeya oo dadka Soomaalida ay u shaqeeyaan badanaa way fiican yihiin yuhuud because yuhuudu badanaa waa dad privately wax u sameeysto oo kambaniyadooda private yihiin maanta sheekadaas maxaa la dhahaa asxaabeedii ka dhacayay de sheekadiina waa taasa reerkaas la Soomaaliyeedna noloshooda way isbedeshay ninkaasaana ka qayb qaatay yuhuudka ah oo taajirka ah oo hooyadiis la caawin jiray marka waxa weeye dadka wax walba ku jira anu carabta ma jecli been idin ma sheegayo carabtu dad fiican ma ahan waxa weeye waaba ku yasaayaan kalarkaaga madow markay ku arkaan waxay ku leeyihiin cabiid bay ku yaqaanaan maxaa la dhahaa kuwan masaakiinta xoogaaga shidaalka iyo hadeer helayo meelahan taagtaagan oo imaaraadkii sacuudiga way neceb yihiin dadka Soomaalida iyo islaamka cabiid bay u yaqaanaan dadka madowmaba wayba yasayaanba gaalada iyaga ka daran marka rashiistanimo dhan iyaga ka soo bilaabtay rashiisto dhan carab bay ka soo bilaabatay carab meesha uu rayso la iska qaawiyay waa iyaga kacbaday ku wareegteen intay dharka iska bixiyeen saa ugu wareegteen iyagoo qaawan yaa meesha ugu horeysay oo khamri iyo balaayo lagu cabayna iyagay ahaayeen oo Nabi Maxamed oo soo bixin bay khamrada saa isugu shubi jireen marka xumaan oo dhan iyagay ka soo bilaabatay ka soo daahirsantay oo ka soo askuntay marka Nabi Maxamed kuma marmarsiiyon karaan Nabi Maxamed oo Ilaahay soo diray buu ahaa carabna wuu ka dhashay laakiin carabtu dad fiican ma aha maxaa la dhahaa mana lagu khasbi karo de qofka oo lama dhihi karo carab jeclow Nabi Maxamed ka dhashay carab dad fiican ma ahan waana laga fiican yahay markii banaanka wadamadan la joogo markay yimaadaan dharkayba iska dhigaan waaba isqaawiyaanba oo maxaa la dhahaa islaamnimadooda ma garanayso qofkan islaam iyo gaal iyo wuxuu yahay xitaa kuma salaamayaan ilaa way qaawan yihiin moogtahay hadda animida ay ugu dhigan guriga saddexaad miya ma aqaan buu gatay Suuriyaan waa asagii naagtiisa waa isku mid waa dadka qaawano naagtuna waaba muluq waa qaawanta inay muslim tahay inay gaal tahay maba kala fahmaysid oo maxaa la muslimnimada hadeeruna yimid mar dhaweyd buu yimid waa Suuriyaan marka dadkan ilaahay bay leeyihiin islaamnimadooda iyagay jirtaa carabnimadooda iyagay jirtaa aniga qofkii maxaa la dhahaa i wanaajiyo oo maxaa la dhahaa wanaag itusiya baan u wanaagsanaanaya as a human maxaa iga galay islaamnimadeeda anaa islaam Nabi Maxamed anuu nabi iya carabtan waxba igama khuseen aad baa idin salaamaya carab waxa arkay gabar Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa Sacuudiga booyisa ka ahoo marmar ka soo hadasho waxay tiraahdaa waxay soo tirsaa siroomiya ha siroo bay soo tirsaa waxay tiri carab maalma arka dhageystay Facebook waxay tiri maxaa la dhahaa kulay intaan saas u joogay cindigeyga carab u shaqee kulay ma aana gelin carab u shaqay cadaab waaye bay marka dambe kusoo galay eebo waxa soo carab u shaqay cadaab waaye bay kusoo gabagabaysay gabadhaas marka carabtu waa xaasidiin weeye